السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isagoo kalluunku uu ka mid yahay xayawaanada adduunka korkiisa saaran kuwa ugu waxtarka badan leh marka laga hadlayo dhinaca cunitaankiisa ayaa haddana kalluunka laftiisu wuxuu ka kooban yahay noocyo fara badan waxaana la sheegay noocyada kalluunka ugu wanaagsan inuu ka mid yahay nooca loo yaqaan sardiinka waana kalluun loogu magac daray jasiiradda Sardiina ee ku taala badda Mediterranean-ka taasoo kalluunkani uu aad ugu badan yahay waxa haddaba xaqiiqa haddaad tagto suuqyada kalluunka lagu iibiyo oo aad u fiirsato qaabka dadku ay u iibsanayaan kalluunka noocan ee sardiinka waxaad isweydiin kartaa wuxuu kalluunkani kalluumada kale kaga duwan yahay laakiin jawaabta su'aashaas waxaad si fudud uga heli kartaa markaad akhrido qoraalada iyo cilmi baadhisyada laga sameeyay faa'iidooyinka uu leeyahay kalluunka noocani ee loo yaqaan sardiinka haddaba kalluunka noocani wuxuu qani ku yahay ama ka buuxa faytamiino macaadin iyo borotiin wuxuu dawo ka yahay xanuunada ku dhaca wadnaha iyo sidoo kale kolestaroolka sidoo kale waxa la sheegay inuu dawo iyo ka hortagba u yahay xanuuno badan oo qaarkood lagu sheegay kuwa halis ah sidoo kale kalluunka noocana waxa ku badan maadada calciumka taasoo u fiican lafaha wuxuu sidoo kale u fiican yahay caafimaad qabka indhaha haddaba waxa lagu taliyaa qofkii awooda inuu si joogto ah u isticmaalo cunitaanka kalluunka noocana hal week oo xidhiidh ah si uu jidhka ugu dhamaystiro waxyaalo badan oo jidhku u baahan yahay